hadda tusaalaha idinkaga muuqato. Nuunka markuu reeban yahay. Min rabbihim. Waxay noqonaysaa. Min rabbihim. Waxaana lagu magacaabaa idagaam. Ingiliishka asna waxaa la qariyaa xarafka T. Markii xarfo qaar ku xigsadaan. Sida tusaalaha ka muuqato. Best friend. Waxay noqonaysaa. Best friend. Si faahfaahsan ayaa u baran doonaa. Qaybta saddexaad. Waxaana lagu magacaabaa. Blends. Waxay u qaabilsan tahay isku xirka ama isku darka xarfaha shibanayaasha. Shaqadooda ma ahan inay dhawaaq cusub sameeyaan. Keliya waxay u diyaarinaysaa inay erayo koox ah abuuraan. Waa 2 ilaa 3 shibane isku dhagan oo dhawaaqooda la isku dhejinayo. Ama si wada jir ah oo dhaqso ah loogu dhawaaqayo. Waxay leeyihiin 2 qayb. Waxayna ereyga ka